Soo dhawaada saaxiibayaal, mar kale isku soo laabasho wacan. Maanta waxaan ii wadaa kaydaraam aad iyo aad u xiiso badan, taasoo lagu magacaabo Top Management. Waxayna soo baxay sanadii 2018. Inta aanan bilaabin muuqaalka, waxaan ka codsan lahaa inaad noo qurxiso like inoo saarto. Haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir. Intaas kadib inoo bilaabo xalqadeena. Daraamahan wuxuu ku bilowdaa koox caan ah kuwaasoo lagu magacaabo Soul waxayna soo bandhigayaan showgan waxaa kasoo qaybgala dad aad iyo aad u badan kuwaasoo raba inay arkaan hibada kooxda. Showgana si fiican ayuu u socday kooxdana ay soo bandhigaysa hibadooda laakiin si naflaana shil ayaa dhaco. Mid ka mid a ilaaliyihii kooxda ayaa wuxuu ku dhaca masraxa hoostiisa, weliba dadku arkaa laakiin kooxda waxay sii wadataa showgeeda. Arrinkaasna waxaa ka carooda taageerayaasha suuqana waxaa loo geliyaa kooxda inay yihiin dadaan naxin, saamiyada suuqoodana hoos ayuu u dhacaa boqolkiiba boqol. Waxaan arkaynaa gabar lagu magacaabo Sion inay arkaas arkayso. Arrinkaas markay maqashay zaad ay isku naxdaa waxayna fiirisaa boor taariikha meesha ku yaalay. Isla markii arrinkaas samaysana waqtiga ay dib ugu laabataa waxayna aadaa 12 saac ka hor intuu falkan dhicin. Haddana waxay la joogtaa koox dumar ah silan falan mid ka mid a dumarkii ayaa biyo ku daato, taasina waxay soo rabtay dhulka inay ku dhacdo laakiin atirishidiina ayaa aragta wayna usoo orday iyadoo badbaadinaysa. Markaasna muuqaalkeena wuxuu gudaa dhankaasi magaalada kooxda caankeed ee Seoul kuwaasoo gaari saaran taageerashooda ayaa dhexda u galo. silan falan qof qariib ayaa daaqad usoo istaaga wayna isku naxaan tiimka dhan. Qofkan wuxuu soo saaraa warqado kuwaasuu daaqada kusoo dhejinayo laakiin si darawalkooda ayaa ku dhaho daaqada iska xiraa, daaqada ayaan iska xiran, gaarigana meesha ayuu ka dhaqaaqaa. Qofkan wuxuu isku daya inuu kusoo dawaado waxaan ogaanaa Sion inay ahayd. Kadib arrinkaas waxaa kasoo wareegtay 2 sano waxaana arkaynaa Sion oo noqotay maanajarad waxaana loo soo diray qof inay soo doonto. Ugu dambeyntii qofka ayaa islaan waxaana lagu magacaaba Hyun Son. Wuxuu weydiiyay hadda kahor in la kulmay laakiinse way ka meeraysatay arrinkaas iyadoo sheeko gal u galaysa. Ugu dambeyntii alaabtiisa ay usoo qaataa waxayna usoo saartay gaari iyadoo kusoo kaxaynaysa. Intay dhexda marayna waxaa soo waca maamulihii ka weynaa wuxuuna u sheegaa maariyii kooxda inuu mashquulsan yahay saas darteed waa inaa soo wadaa kooxda dhammaantooda. Sion arrinkaas koodii way diidaa laakiin maamuliheeda ayaa ku cadaadiyay wayna ogolaataa. Waxayna wacdaa midkii ugu horeeyay kooxda laakiinse taleefka ayuu ku jiraaba. wax yar kadibna waxay arkaan soo agtooda marayaba. Saaxiibtiis ayuu ka daba cararay asagoo barbaraya maadaama qalad uu ka galay. Jilba ayuu dhulka u igtaa laakiin way ka tagtaa. Ugu dambeyntiina gaariga uu soo raacay weliba asagoo murugaysan. Intii uu gaariga saarna wuxuu ka hadlayay dareenkiisa silan falan waxaa kusoo dhacday cid ay yihiin inuu weydiiyo. Sion ayaana u sheegtay inay tahay kadib maanajarad cusub ee kooxda. dhan kale waxaa arkaynaa koox film duubaysay. ninkii filimka duuba ayaa wuxuu ku qeylaya atooraha filimka maadaama actarkan uu iska qoslaya xataa doorka hadduu yahay murug laakiinse filimka ma saari karaan uu qurux badan yahay. kadib uu soo baxa wuxuuna la kulmaa Hyun Son iyo Sion. gaariga ayuu soo raacaa muraayadda asoo fiirinaya inuu dhoola cadeeya. arrinkaasna Sion ayaa ka xishooto muraayadda iska leexisa. kadib waxaa arkaynaa dhankaas iskuulka wiil lagu magacaabo Erib kaasoo foodinaya ciyaal foodo meesha fadhiday. hadal ayay ka daba tuuraan laakiinse ciyaal foodadii gabar ay u imaado waxayna ku dhahdaa isku dayana mar dambe inaa foodaysaan. Eribna gaarigiisii intuun garin gadaal ayuu soo fiiriyaa wuxuuna arkaa gabadha oo salaamaysa laakiinse uu kasii jeesta gaari ayuuna gala gabadha way ka xumaataa. haddana fanaaniintiisii oo saan ay ku dhamaystiran yihiin waxaana lagu kala magacaabaa Tio Iribiyen. kadib atariishadeena maamulaheeda ayaa soo wuxuuna u sheegaa war naxadine taasoo ah kooxda inay burburi doonto hadday showga guuldareystaan. ugu dambeyntiina kooxda waxay imaadaa meesha lagu qabanayo showga. markii magacooda lagu dhawaaqaan taageerayaasha waxay muujiyaan inay soo dhaweyneynin. ugu dambeyntiina kooxda way imaadaa iyagoo soo bandhigaya show ayna macaadi ahayn. goobtan waxaa imaada xubnihii dhabta ay maamulaya kooxda. manajarada kooxda oo atariishadeena ah ayay la hadlayay laakiin si liflaan ah waxaan arkaynaa mid ka mid a kooxda inuu oynayaba wuxuuna u sheegaa dadka inay kooxda burburi rabto mar dhow laakiinse dadka meesha ka murugoyn lahaa way ku qoslaan sababtoo ah hooyinta kadib kooxda inay showga iska sii wateen. maalinka xiga tiimkan hal meel ay ka wada shaqeynayaan Sionna way joogta meesha. Sion warqad ayay meesha ku aragtaa wayna fiirisaa waxayna aragtaa mustaqbalka iyadoo waxaa ku dhici doona. halkaas oo fahmayna Sion inay leedahay awood mustaqbalka ay ku aragto. kadib maalintii xigta waxaa keenay iyadoo dhankaasi shaqada usoo socoto. ugu dambeyntiina waxay la kulantaa Hyun Son waxayna ka wada hadlaan arrin ku saabsan kooxda Seoul. kadib waxaa lasoo gaaraa xilliga qadada. maqaayadda xarunta ayayna imaadaan halkaasoo wadajir cuntada u qaadanayaan. kadibna xarunta ayaa laskugu imaadaa iyadoo shir la galaya waxaana laga doodaa in Hyun Sung laga dhigay kooxda qofka cusub kusoo biiri doona. maamulayaasha ra'yigiisa ay weydiiyaan wuxuuna ku dhahaa Hyun Son weligii kuma fikirin inaan fanaan noqdo laakiinse haddii idinka ogashiyaanna waa ogolahay. arrinkaas ayaana ku farxaa maamulayaasha laakiinse Hyun Sung saas kuma aamuso. wuxuu bilaabaa inuu isfaaniyo Sion ayana lugta ugu istaagto. kadib waxaa arkaynaa kooxdii Seoul oo hal meel isla joogtaa iyagoo iska sheekaysanaya. Hyun Sung ayaa muusig daaro muusigaas ayay kooxda iskaga dhexsanaya meeshan waxaa soo marta maamulaha isla markii moobilkeeda ay soo baxsataa maadaama heesta ka shabeed duubataa. dhan kale Sion waxay imaadaa gurigeeda iyadoo soo baxsanaysa dharkii yaraanteedii training ay ku qaadan jirtay waxayna hor istaagtaa muraayadda xasuuso hore ayaana kusoo dhaco isla markiina way iska celisaa. kadib banaanka ay usoo baxdaa hore dalad ayay usoo qaadataa maadaama roob uu da'ayay. intay wadada gurabtana gaari xoog u socda ay meesha soo maro. Sun waxay badbaadisaa gabdha meesha taagna kuwaasoo biyo ku daadan rabay. ugu dambeyntii gabdhaha way macdaliyaan meesha ayana iskaga tagaan. kadib Sion waxay imaadaa xarunta shaqada waxayna aragtaa dadkii xarunta ka shaqeynaya inay game bb iska dheelayaanba. isla markii gacanta ayay taagata iyada ku dhehaysa aniga ii dhiiba. gabadha ayay ka xogtaa isla markiina biyihii ayay daadaysaa dadka dhan ayay halaysaa. waxyar kadib waxaa arkaynaa Sion oo murugaysa maadaama xishood iyo ceeb ay darantay. intay nafteeda eedeynaysan waxay maqashaa silin falan hees ka soo baxaysa dhankaasi Hyun Son. heestaasna qalbigeeda ay diisa Hyun Son ugu arkaa inay soo fiirinayso. maalinka xigay maanajarada tiimkii Seoul hal meel ay iskugu keentaa waxayna u sheegtay
sheegtay Hyunsoo inuu kusoo biiri doono tiimkana arrinkaas markay maqlaan waa isfiiriyeen ayagoo yaaban dhanka kale Hyunsoo wuxuu imaadaa guriga tiimka wuxuuna arkaa gudaha markuu soo galay guriga inuu zaid wasaq u yahay arrinkaasna kama helo waxaana arkay wax yar kadib inay imaanayaan tiimkii Seoul waxayna arkaan guriga in la hagaajiyay waxayna isweydiiyaan dhexdooda in qof uu keenay gabar taasoo guriga hagaajisa laakiinse marka dambe waxay ogaadaan Hyunsoo inuu yahay qofka meesha hagaajiyay maalinka xigta waxaa arkaynaa tiimka dhan inay hal gaari soo raacayaan dhankaas shirkadda ay soo aadaan markay baakinka soo gaaraan shil ayay galaan CEO-na arrinkaas markay aragtay zaid ee wax naaqda waxayna ku qaylisaa gaariga shilka geliyay balse waxay aragtaa managerka ka weynaa inuu la socdo sidoo kale gaariga waxaa saarnaa fanaan caana kaasoo kaligiisa heesa markaasna doodooda waxaa soo dhexgala Hyunsoo wuxuuna la jirsadaa fanaanka asagoo eedda dhan saaraya Seon kadib Tio iyo Hyunsoo waxay soo raacaan wiishka Tio Hyunsoo ayuu weydiiyaa sababta uu la jirsaday ninkaas balse Hyunsoo wuxuu ku jawaabay kaliya aniga runta ayaan sheegayay kadib tiimka studio ay isku imaadeen isku diyaarin inay wax soo duubaan balse meesha waxaa soo gala fanaankii caanka ahaa wuxuuna ku dhahaa maxaa naga qaldan meesha aniga wax ku duuban rabo Tio ayaan soo kaca wuxuuna ku dhahaa 3 saacadood ayaa meesha karaysanay isla markii Seon ayaa banaanka loola soo baxaa waana lagu qayliyaa asxaabta kalena kor ayay ka fiirinayeen markaasna fanaanka uu tanaasulo wuxuuna ku dhahaa 3 saac iska dhamaysta intaas ka joogaya waxaana fiirinaya sida wax u duwaysiin isla markii asxaabta way wada fadhiistaa wuxuuna bilaabay Hyunsoo bilaab macna inuu ku hadlo Seon ayaa soo orday waxayna jiidaa gacanta laakiin isaga ma aamuso maanta dhan uu daldalmayay ugu dambeyntii shaati ayaa ofurma Seon wuxuu ku daba dhacdaa fanaankii tiimkii meesha joogana isku naxa maadaama fanaanku ku daatay kofayga uu watay fanaanka inta dhan wuu isdejinaya laakiin wuxuu arkay kabihiisa inay halaabeen arrinkaasna uu ka xanaaqa sababtoo kabaa waxay ahay mid qaali ah Seon waxay bilowdaa fanaanka inay raali geliso tiimkana arrinkaas markay arkaan qosol ayay ka bixweynayaan maalinka xiga tiimka waxaa arkaya dhammaantood inay imaanaa studio halkaasna waxay ku diyaarsanaa heestii ay ku daawsi gareyn lahaayeen horna waxaa ka daawanaysa Seon waxayna fahantaa Hyunsoo inuu tiimka hal mid ka dhigay markaas xubnaha tiimka waxay bilaabaan meesha inay ku daawsin gareeyaan qof walba si fiican ay u daawsi gareynaya marka laga rabo Hyunsoo sababta uu ku cusub yahay markaas xoogoo Tio ayaa daansi tuso daansigii ayuu ku celceliyaa laakiinse ugu dambeyntii wuu daalaa oo dhulka ayuu jiiftaa habeenkii markii la gaaray Hyunsoo wuxuu bilaabaa kaligiis inuu tareeni gareeyo markaasna Seon ayaa meesha timaada waxayna ku dhahdaa xoogoo ma ku baraa maadaama iyada hore ay u aqaantay daansiga intay isku dayeysay inay wax fahansiiso meesha waxaa imaada Yoon wuxuuna ku dhahaa man igu soo biri karaa oo misla daansin gareyn karnaa tiimkana waxay ku dhahayaan maxaa diidaya waxayna bilaabaan habeenkii dhan meesha inay ku daansin gareeyaan maalinka xigay madaxda hal meel ay isku imaadaa oo waxa la qiiminaya tiimka Seoul meeshan waxaa imaada fanaanka caanka ah wuxuuna ku dhahaa tiimka man igu soo biri karaa fanaanka baa loo ogolaadaa wuxuuna ku dhahaa tiimka Seoul inay guulaysataan kadib tiimka waxay bilaabaan xirfadooda inay soo bandhigaan tiimkana daansiga si fiican ay iskula fahmayeen laakiin Seon walwal ayaa ku furnaa oo waxay ka walwalaysay jawaabta ay bixin doonto maamulaha kooxdan meesha u dambeysay markay meerayaan Hyunsoo ayaa daansiga qaldo saasay tahana dadka meesha jooga u sacbiyaan maamulada ayaana tiimka hadasha waxayna ku dhahdaa ma isku kalsoon tihiin tiimkan waxay u sheegaan inay isku kalsoon yihiin laakiin saaxiibkiina Hyunsoo ay soo bado wuxuuna ku dhahaa 100% waa isku kalsoonahay Seon walwal ayay dareentaa madaxdana waxay u sheegaan qaladaadka yar ee tiimka dhacay sida iskaga sixi lahaayeen sidoo kale fanaanka wuxuu ku darsadaa fikirkiisa maamulada jawaabteeda waxay noqotaa kalsoonida markay 100% noqoto iyo imaada kadibna kulligooda madaxda meesha ayay ka wada dhaqaaqaan Seon arrinkaas markay maqasho zaid ayay u murugootaa kaligeedna murugada ma haysan ee tiimka dhan ayaa murugaysanaa kadib Seon iyadoo xishoonaysa waxay u imaadaa tiimka waxayna ku dhahdaa iga raali noqda balse Yoon ayaa ku dhaho adiga qaladkaada maaha taas sunna intay meesha joogto xoogaa waxaa dareemayna hargab inuu haayo kadib way soo baxdaa waxay u imaadaa kuwii ka sareeyey hortida ay iskaga baashaalaan iyagoo cunto iskaga cunayaan Seon hargabka ayaa kusoo kaco cuntada ayayna ka halaysaa maskiintana mar walba wax soo saysa dhahda qalad unbaa ka dhaco maamulahana wuxuu bilaabaa inuu ku qayliyo Seon waxay gashataa maaskii banaanka ayaana soo baxdaa iyadoo zaid u murugaysan nafteeda ayay eed saaraysa mar walba waxay hagaajis dhahdana qalad unbay samaysaa intay meesha socotay erib ayaa ka hormaada markuu maaskiga arkan uu isku naxaa Seon wejiga ay u furtaa wuxuuna ku dhahaa gabadhii maaskiradan ku maleynayay Seon arrinkaas ayay la yaabtay laakiin waxay soo xasuusataa markay gaariga tiimka saarnaayeen ee kasoo daba ordaysa iyadoo maaskiga qabtaa waxayna isweydiisaa erib ilaa sababtoo arrinkaas u xasuusto xalqadini koowaad ee daraamaha halkaas ayaan noogtay saaxib yaal insha allah xalqada xigta waqtiga ugu dhowaan soo dhigi doonaa balse intaa taa soo gaarto waxaan ka codsanaa muuqaalka inaad noo qorxiso like inoo saarto haddii aan ugu cusubtahan nagu soo biir intaa muuqaalkiis kulmeen waxaan leeyahay sidaas iyo nabadgeliyo